farxad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasheena qiimaha badna ku soo dhawaada YouTube channelkeena ST21. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay ugu dambeyn dibkii iyo rafaadkii ay soo mareen muslimiinteeni way ka guuleysteen Yahuuda. Dulkana bay ku jiideen Yahuuda. Masjidul Aqsana wuu badbaaday. Israa'iilna waxaan sheegayaa guusha ay gaareen muslimiinta waxaa ka dambeeyay hal qof. Guusha ay gaareen muslimiinta waxaa ka dambeeyay hal qof. Halkaas qofna waxa aan dhihi karaa waa madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. madaxweynaha Turkiga wallaahi oo bilaahi oo talaayo muslimiinta wax badan ayuu qabtay. Madaxweyne waxaan ku leenahay guuleyso, soo noqo, mar labaad soo noqo, guuleyso ayaan ku leenahay. Waana kula jirnaa insha Allah doorashadana adiga ayaa loo dooranayaa, waa kula jirnaa. Madaxweynaha Turkiga ayaa sabab u ahaa inay guuleysato muslimiinta. Masjidul Aqsana inuu badbaado asiga ayaa sabab u ah. Maxaa yeelay madaxweynaha Turkiga asiga ayaa ciidan u diray muslimiinta si ay ugu dagaalamaan Yahuuda. Degantaaladana asiga ayaa ku dhigay. Farxad alxamdulillaah Yahuuda way jabtay. Wallaahi farxada meel asdiga la ah Yahuud inay jabto waan ku faraxsanahay. Maxaa yeelay muslimiinta ayay nafta u keeneen. In ay jabtana waa lagu faraxsan yahay. cid walbana ku faraxsantahay. Guul mar walbana muslimiinta waxaa u rajeynayaa guul. Masjidul Aqsana guul. Wassalaam.